ciidanka Somaliland oo 25 August dib u gurasho iyo xeelad dagaal uga baxay difaaciyadoodii adkaa ee Maraaga iyo Gooja Cadde ayaa muddo diyaar garow culus ka wada degmada Og halkaas oo ay nasniino iyo fasax ku qaateen sidoo kalena waxa lagu kordhiyay tiro kale oo ciidan ah oo aad u tababaran laakiinse tan iyo markii ay ciidanka Somaliland fariisin ciidan ka dhigteen Og waxaa kordhay walaaca iyo cabsida ay qabaan ciidanka huwanta ah ee ku dagaalamaya magaca SSC ayadoo ay saacad walba ka walwalayaan inay ciidanka fadhiyo oo ku soo dhaqaaqaan sidoo kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maalmaha nagu soo aadan tababar u soo xiri doona ciidan cusub oo tiro badan oo ka mid noqonaya ciidanka militariga Somaliland sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa socdaal ku tagaya markii ugu horeysay degmada Og oo ay fadhiyaan ciidanka Somaliland safarka Muuse Biixi ee Og wuxuu ciidanka Somaliland u yahay dhiirigelin iyo moral halka uu dhinaca kalena huwanta u yahay geeri iyo quus sidoo kale madaxweyne Biixi ayaa sidii hore ka awood badan kaasoo hadda leh hal ujeedo maadaama uu iska xaliyay dhammaan caqabadihii siyaasadeed ee ka haystay gudaha Somaliland sidoo kale shacabka Somaliland ayuu taageero ka helayaa ayadoo ay xisbiyada mucaaradka Somaliland waqtigan si weyn u garab taagan yihiin madaxweyne Biixi dhinaca kalena duulaanka cusub ee la filayo inay Somaliland qaado dhawaan wuxuu ku soo aadayaa xilli ay beelaha Somaliland hub ka qaateen ayadoo shalay oo u dambeysay ay ciidan beeleedka habar jeclo khasaare xoogan gaarsiiyeen huwanta markaas oo u dhacay dagaal culus oo huwanta looga qabsaday magaalooyinka Maygagle Qalanqalle iyo Yeyle taasoo muujinaysa awoodda ciidan ee habar jeclo dhinaca kalena khubarada ciidamada ayaa sheegaya inaysan cidna u babacdhigi karin ciidanka Somaliland iyo shacabkooda oo markaan doonaya inay xaqiijiyaan hadafkooda taasoo xaalka ku adkaynaysa kooxaha ka soo horjeeda Somaliland sidoo kale waxa taas ka sii daran in Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale uu dhawaan qaatay go'aan dagaal isagoo faray reerkiisa inay istifaacaan markaas oo ay qaylo hal mar kor u yeertay ayadoo ay isimada dhaqanka bariga gobolka Sool codsadeen nabad iyo wada hadal taasoo loo arkay inay dareemeen culayska dagaal ee ay leedahay inay kacaan beelaha Somaliland sidoo kalena ay dagaalka hogaamiyaan odayaal dhaqan oo la dhigan kara garaadada reer Laascaanood oo muddo buddig u ahaa colaadda Laascaanood sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Uxud Injineer Faysal Cali Waraabe oo muddo dheer raadinayay inuu mar u noqdo madaxweynaha Somaliland ayaa xilligan shacabka Somaliland ka helaya taageero buuxda isagoo la yimid geesinimo dheeraad ah dhinaca kalena noqday halka siyaasi ee hogaamiye xisbi ee tagay furimaha hore ee dagaalka kaasoo si joogto ah ula hadla shacabka iyo ciidanka Somaliland waxaana loo arkaa inuu abuurtay fursad uu ku noqon karo madaxweynaha Somaliland wuxuu Faysal Cali Waraabe halkan kaga horeeyaa hogaamiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro iyo siyaasiyiin waaweyn oo magac ku leh gudaha Somaliland taasoo Faysal Cali Waraabe siinaysa fursad dheeraad ah oo ay shacabku ku raaci karaan xisbiga uu hogaamiyo ee Uxud dhinaca kalena ciidamada madaniga ah ee beesha habar jeclo oo dagaaladii u dambeeyay guulo waaweyn ka gaaray ayaa la filayaa inay dagaalkooda sii wadaan kadib markii uu suldaankoodu faray inay istifaacaan kuwaas oo weeraro gardarro ah kala kulmay dhowr maalin ka hor kooxaha huwanta ah intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee Somaliland iyo xaaladihii ugu dambeeyay fadlan daawade muuqaalkan gaarsii asxaabtaada